halkani waa Dogoble waxay ka tirsan tahay gobolka Sanaag degma ahaana Ceelaf Weyn waxay ka xigtaa dhinaca koonfureed magaalada Ceelaf Weyn waxay u jirtaa 65 kiiloomitir meeshani waxa ay magaalo ahayd in ka badan 50 sanadood halkani waxa ku yaala ceel mahwi ah oo la magac baxay Dogoble waxa ka caba halkii maalinba 1000 halaad oo geel ah ilaa 10,000 oo neef oo ari ah meeshani waxa aad ugu tarma xoolaha dadka yaala waa dad xoolo dhaqato ah sida la ajligeed halkani waa ceelkii magaalada oo ay ka cabayeen xoolihii 2016 bishii 10aad ee Oktoobar 15keedii waxa ka dhacay musiibadan aad daawan doontaan magaaladii nooca ahayd hal mar ayaa la baabiyay 15 Oktoobar 2016 ayaa waxa burburiyay xukuumadda kulmiye ee haatan talada haysa ilaa hadda lama garanayo xukuumaddu waxa ay ku burburisay magaalada nus qarniga jirtay kuwani waa cagaftii la geliyay magaalada askar aad u fara badan loo dalbaday bulshadii ku noolay magaalada waad aragtaa sida magaalada loo baabiyay gabi ahaanteed daaraheedii iyo dhammaanteed waa la burburiyay waata maatadii oo cidlada hoganaysa xataa waa la diiday inay xukuumaddu meelgeyso kana waa masaajidkii magaalada oo arki doontaan mar dhow isagoo isna la burburiyay lama garanayo guriga ilaahay waxa lagu burburiyay ilaa hadda lama garanayo waxa maatada 300 ee qoys ah hantidoodii iyo guryahoodii loo baabiyay waa kuwa iyagoo cadceeda wax u karsanaya godadkaasay huluushadaan oo biyaha ay ka cabaan bal ila daawada iyadoo maqal iyo muuqaal ah carruurtii la baacsanayo daarihii oo la duminayo sida cagaftu u galaysa eeg lama garanayo arintani waxa ay ku lug leedahay beeldan oo ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hal mar mustaqbalkeedii la baabiyay ilaa hadda waa su'aalaha isweydiinta leh u fiirso baasha loo dalbaday waar ka tagi mayso guryaha xataa dhagxaantii bay urursanaysaa u fiirso gayiga Soomaalida kama dhicin marnaba arintani waxaase taa ka daran oo mar dhow arki doontaan ilaahay gurigiisa oo sidan si ka xun loo burburinayo lama garanayo cadaawadda inta leeg u fiirsan masaajidka kan waa masaajidkii magaalada xukuumaddana ma islaam ba mise waa wax kale adigu isweydii masaajidku muxuu galabsaday ma ahzaab buu ka tirsan yahay masaajidku 50 sano ayaa dad muslimiin ilaahay ku caabudayeen waad ogtihiin dhawaan in xukuumadda Soomaaliland ay dib dhis ku samaysay kaniisadaas oo lagu sheegay inay ku taalo Hargeysa wasiirka diinta iyo awqaafta ayaa fadwooday in masaajidka la dumiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مساجد إلهي با إسكاله إسكا أيا لو عابدا إذ أن إسكا هن لو معابد كرو وفي سادة